السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena Islamic app. runtii waxaan idinka raali gelinayaa 3 isbuuc oo aan idinka maqnaay haddana aanan wax muuqaal soo gelin sababtoo ah imtixaan ayaan isku diyaarinayay. marka maanta waxaan idin wadaa muuqaal aad u xiiso badan. muuqaalkaas oo ku saabsan 5 application oo aad u fiican oo aadna ka heli doontaan insha Allah. haddaba daawasho wacan. application kuwaad waa reachability cursor. application kan ayaa inta badan loo isticmaalaa marka aad mataqaanay halkaan aad telefoonka ku hayso oo gacanta kale aad ka mashquulsan tahay mataqaanay oo aad meelahan aadan gaari karin oo ama fartaada uusan gaari karin meelahan ayaa application kan loo isticmaalaa sida waa mouse caadi ah. meesha doontid ayaad click ku dhigi kartaa, sidoo kale meesha doontid ayaad keeni kartaa oo application u fiican oo marka waxaad soo furaysaa application kan si aad u isticmaasho. markaad soo furto kaliya waxaad taabanaysaa swipe markaad taabato waxaad ka arkaysaa mushakal, laba mushakal geesaska kaaga muuqdo oo ah left part iyo right part oo adiga labada geesood aad kasoo jiidi karto. location oo ah haddii rabtid waxaad keensan kartaa hoostan marka left right midig bidix ayaa u kala baxaa. haddii aad rabtana size-ka ayaad weynaysan kartaa oo size-ka ayaad mataqaanay si hadhow oo kugu fududaado soo jiiditaanka. marka waa application aad u fiican. application ka kalena waa fluid. application kan ayaa mataqaanay waxa loo isticmaalaa inaad mataqaanay recent home back iyo waxyaalahaas si aad mataqaanay adoonan isticmaalin batanka caadiga ayaad u adeegsan kartaa application kan adigoo hoos ka soo jiidayo kor keenayo kadib intana geeska adigoo soo jiidayo oo ku geenayo qaybtan recentiga ah iyo mataqaanay qaybtan kalena oo adiga ka dhigan karto back oo aad ka laaban karto. sidoo kale dhinacan waa ka soo jiidi kartaa, sidoo kale dhinacan waa ka soo jiidi kartaa oo waxa doonto ayaad dooran kartaa. marka application-ka markaad soo furto kaliya mataqaanay meeshan ayaad furaysaa. marka meeshan furto wuxuu kuu gudbinayaa qaybtan waa inaad on dhahdaa oo furtaa. markaad on dhahdo kadib waxaad ku soo laabanaysaa setting-ka qaybtan. wax kale haddii meeshan waxaad ka bedeli kartaa actions oo mataqaanay qaybta markaa left saan usoo jiidaysid iyo right markaa saan usoo jiidaysid waad kala dooran kartaa. sidoo kale back receive buttonka iyo home buttonka iyo back buttonka ayaad kala bedelin kartaa oo hadda aad rabtana application ayaad ku daran kartaa. markaad ku darayso application waxaad taabanaysaa swipe and hold qaybta application ayaad kasii dooranaysaa action iyo shortcuts. inkastoo haddana application kan uu lacag yahay sidoo kale size-ka ayaad weyneyn kartaa oo mataqaanay waxyaalo badan aad ka bedeli kartaa. intana waa more option kale ayuu ku siinayaa sida colorka inaad bedesho, inaad gariir ku darsato, cod ku darsato, finger sensor, suulka iyo waxyaalo lamid ah ayuu leeyahay. application ka kale waa mask music. application kan waa mataqaanay geesaskan ayuu markaa music daartid oo kale geesaskan ayuu kaaga soo muuqan doonaa sida marka hadda quraankan oo kale aan daaro geesaskaas ayuu kaaga soo muuqan doonaa. application kasta oo mataqaanay music ah markaad daarto geesaskan ayuu kaaga soo muuqan doonaa. marka application kan ayaad soo furanaysaa, inta ayaad taabanaysaa kadib wuxuu ku gudbinayaa qaybtan oo waxaad ka raadinaysaa application kan magaciisa kadib on ayaad dhahaysaa waad ka laabanaysaa. sidaas ayaad application ku furtay. sidoo kale round oo mataqaanay size-ka aad weyneyn karto, aan dhahay size-ka aad wareejin karto, sidoo kale aadna mataqaanaa xoogaa yareyn karto si uu ula simnaado displayga ama shaashada. mida kale ah edge light oo adigana aad weyneyn karto qaabka size-kiisa. sidoo kale speedka markuu soconayo wareega sidoo kale aad badsan karto. sidoo kale kalarada aad bedeli karto. waxyaalo badan ayuu leeyahay. application ka kalena waa antif.
asigana waxaad u isticmaali kartaa jaajarka markuu kugu jiro taleefanka oo mataqaanay haddii qof uu ka bixiyo ama mataqaanay tuug oo kale oo damco inuu ka bixiyo jaajarka kadib oo mataqaanay oo qeylinayo hadda tusaale oo kale markaan jaajar geliyo oo hadda jaajarka ayaan geliyay kadib waxaan ku xirayaa passcode. Markaan ku xiro passcode ayaan ku xiray kadib waxaan furayaa anti-theft. Markaan furo xoogaa markuu adiga buuxsamo kale haddii aan ka bixiyo wuu qeylinayaa ilaa aan passwordka geliyo, si kale kuma damin kartid. Applicationka u dambeeya waa Kiwi browser. Applicationkan ayaa mataqaanay wuxuu u egyahay Chrome oo mataqaanaa qaabka Chrome oo kale uu leeyahay, waxba kama duwano, kaliya wuxuu kaga duwan yahay turn on night mode oo kale, translate ayuu leeyahay halka Chrome uusan lahayn waxyaalahan. Sidoo kale waxaa keensan kartaa hoos oo mataqaanay sidoo kale waa kana kor ayaad keensan kartaa, marna hoos ayaad keensan kartaa. Waxyaalaha uu kaga duwan yahay ayaa waxaa ah night mode. Waxay isku egyihiin Chrome oo meel kasto Chrome ay iskaga egyihiin. Waa application aad u fiican.